حنو بعض يبغى ما تنسى الشيء ما تصدق حدي وارسنا بروفيسور رضي علمت الجامعة هذه أقوياء كي دم يرد على شيء يعني ما تعود ضمن الشيء ما تصدق حدي هذا الجوال وأروح هذاك الشيء وين الشيء ما حدا الشرعية كم حيلة لبض صدق حيل بضر خيارك ما ولا بدوي كإسلام كان رومان يكينيا دقنك كينيا دقنك ويقولونك دقن كينيا وآل وجه عليها لكن آل وذا أقولين وإنتين هذين السويدين دقن كينيا كشرعات كانوا شعلها لما أنت واحد كشرعات شرعات دعاء ويقولون بالسنة ماشي بالخلصان الله لا يعلم الله لها حضر مركب قف رقمايه وحيد عالم كينيا لو سبيها لو بريه doorashada ugu horeysa xisbiyaa la sameeyey waawada sharciyaa loo sameeyey dhaqaalaa la geliyey waxaa la sharciyada xisaabsan haddaba xisbiyadii maxaynu ka doonayna xisbiyadii waxay noo tarayaan oo qolooyinkii samaysaba ay ku tareen qaybsanaanta bulshada ardaa qolada gobolka rag iyo dumar kala qaybsanaanta da'yar iyo da'weyn kala qaybsanaanta qani iyo faqiir kala qaybsanaanta aqooyaha iyo aqoonta badanka Allah kala aqoon intaas oo dhan inaynu iskaashadada isfahamnay xisbada isfahamsiyaan oo aynu dhan intiisa fikrada u guurteen u dooranayaan xisbada imika waa labaatan jir ay ku dhow yihiin intii ay xorada la soo noqonay intii wixii ka gorsayada xisbiyada labaatan sanadood haddaynu isweydiino qaybsankii ma inaga saareen ma uriyeero dadkii ma isku dareen ardaagii ma inaga saareen waa mid qani iyo faqiir ma inaga saareen ma isku geeyeen waa mid da-aa kala waaweyn ee mujtamaca ma isku xidheen oo ma isku dareen meel mooda geeyeen waa tu kale aqooyahanka iyo ninka aqoonta maxay ka yeeleen ma isku dareen waa mid kale dee anugu qiimeyn maaye ونحس ولا هذا أنا وهذا واحد ولا ولا تشيل ولا سوى تاجرنا هاي إذا كان قيمة دلوش شيء وحنا ما هاي لا حدي حال يكرستوش على القرآن أنت لو داري وجودية سليم علماء ما حد غير يقول بديه وبقول يصدر قضاء نقضي وإلا الحلمية أما قالوا يكون ترشرعين ولا يسلي شرعي ما أقبله oo ma wada rumaysana oo ma u guuray ma raacana waa mid kale mise maya ee waynu maqalay teedayo yaroo su'aalka marka anigu way argayda ka warramo waxaan arkay dadkii mujtamacii xukumayay oo isku waafaqsan inay dawlad casri ah samaystaan xaqiiqadu ay tahay in aanay koodi ka guuri oo aanay aqbalay dawlad casri ah waayo qofku marka wuxuu baahanayaa horta in loo sharxo waxa dawladda ay soo aragtay noqon taasi waa sharciyada haddii imka nin diro inagoo arkayna halkaa reerku ka dhashay waxay ku dadaalayaan sir iyo caadba inay dembiga ka fakiyaan hadduu qof dulmo oo uu xaawaan xoolihiisa u dhacana waa taatulmi waxyaalaha haysta waxaa ka mid ah moral tii siyaasadda xisbiyadu way socon waaye xisbiyadu kaaba qabiilo noqdeen waayo dadkii baa qabiilka doonaya lagaaba dhegaysan maayo dadka sharci baa raacaya xisbu dad buu baahan yahay dadku waxay doonayaan baa soconaya waa ilaaha tashiic waa lagu yimanayaa waxaa lagu keenayaa nin dadka dila oo wuxuu doono xada oo aan dowladda cusub aqoon oo laandheera ah oo reerkiisa wato haddaad diido codkii baa kaa tagaya يا قفرنا مرحبا حسنا يا درب صعبة ضايركي بروفيسوركي دكتوركي كي أتوه صوت بعضه هبلنا ولا مش حرام يا مدي هذا هو الاسم يا قبيلة دالي قبيلة بحر السير واحد أنا دور بالي شيء حقيقة هذا دور ربي هو بان الأهلي وحنا دور ربي إلا ما ينسكت على نه لا تجرك wiil iyo gabadh
wuxuu soo ku dhex jiraa society-ga deetana isagu wuxuu arkaa inay sidaasi sax tahay 40 jir buu ku gaarayaa 60 buu ku gaarayaa deetana waa geedkaaday ka dhaadhicin maysid sida meel u gaari maayo markay dhibaato ka aragnay in badan laga sheekeeyay laakiin talaabo laga qaadi waayo waxaa nala noqotay inaynu ku noqono dhaana dadka aan barno waxaan doonin iyo waxaan u dhigayo inagoo qoladiya inagoo laandheereeya inagoo faankiya inagoo reer dadka u wanaagsan yahay oo kuwa kale aanay wanaagsanayn u fiirsan reer walba gaarashadaan iyaga war kuwa kale ma aha midna madax kale uma ogola waayo isma gudbaan isma wareystaan ninada si iska u faan badan isaga ugu dhaqan wanaagsan isaga ugu qaalis laakiin ilaa aynu qaali wada noqonno isku daraa in wax weyn noqonne ayay u baahan tahay la isku riixo saddex waxa isgaraacayoona dhibaato inaga haysataa dhaqankeennii iyo kii la doonayay dowladnimada sharciga dowladda dastuurkii la qoray sharcigeena dastuurkii ma ogola xeerkiina ma ogola waayo xeerku daafaca caaqilka iyo suldaanku wuxuu u dhaartay oo ilaaliyaa jil qaranka ma ilaaliya isagu marka waa jilkiisa maruu daafaca marka hadduu kii jilka daafacay kii baarlamaanka ee qaranka loo doortay ama guurtidii qaranka loo doortay ama madaxweynihii ama wasiirkii ka awood bato oo shicibkii ka raaco dee ka qabiilka wada awood badanaya marka waxay u baahan tahay in la yidhaahdo dadku waa adduunkooda waa wada qabaa'il ingiriiska hadda kastan ku dayanaa waa qabiil buu kala socdaa haddana wuu isku adigi chinahaas waa qabaa'il waa dhaanas laakiin wuxuu eegayaa inuu qabiilkii qaranimada ku dhiso ilaaliyo qabiilkiina ilaaliyo dantiisa ilaaliyo inagu tiibaa weli inaga qasan marxaladda marka qarankii waa la dhisayaa garboonka waa lagu odanayaa sharciga waa la samaynayaa laakiin waxaa la harayaa weli sentimentka reerka ka weyn labadaas waa dhibaatooyin inala jirtooyin marayna inaynu isla fahno la barto aynu kaga baxnaynu doonin morality markii ninkii la doortay xisbigu qabiilo kugu soo doortay eed baarlamaan tahay ama wasiir laga dhigay ninkii waxaa leeyahay reernimaad ku tiri reerkii maxaad u qabatay hadduu reerkii waa qabaana tiirkiisa doona suuqu yaalla baanimadu birta noqonaya reerkii ma raacayo haddii wasiir wal iyo xildhibaan waliba reerkooda u shaqeeyo qarankii ka tagana qaranka ugu dumaya ninkiina dadkii soo doortay waxay doonayaan taa jeeska ah wana wada dhan waa mashaakilka aanu arko inuu sharcigan iyo barashada aynu barayna aynu kaga dhaweyno uu daweeyo odayaasha waaweyn aqoonta leh ee nagu sii hadeen dabada yarina inay aqoonta qoraal ahaan inooga tagaan inay fahamsiiyaan da-yartana arrintaa la isla fahmo tusaalaan isiinaya ilaa iyo 2002 aynu doorashada bilownay kaynu doorannaba waxaa la yidhaha shalay dhaantay bal waxaad ii sheegtaa gole iyo doorashada doortooda kuwana ka fiican kuwa ay beerinay imkana doorashay nagu diyaarna maantay soo baxaan baa odhanayaa kuwii hore dhaamay miynaan ka koray ma tahay miynaan ka koray imika waanu ka kor imika olaa socda maxaa doorasho maxay kusoo baxaysaa qofku muxuu yaqaanaa ma waayo aragba ma daacadba ma miyir qabaa conditioniskaa sharcigu sheegaya lama eegada waynu ognahoo naftaa iska keen baxsan oo reeheelow tus maynu ahayna reeheelow maanta siiya reeheelow markay isla baxaan odhan maayaa ninkan shaqada ay u dirira ma garanaaye ka ama ugu qafqaf badan ama ugu manipulation badan baa soo baxaya hadhowtu deetana inoo imanaya ninkaanu doorano isu wada keenay oo reer uma tusmo iyo xarifnimo ku soo baxay gabdhihii lagama tegay iyaga iska dib gabdhaha iyaga gabdhaha beri hore uga marisaya raggi naftiisii baa soo saaray kii wanaagsanaa hashi qabyaalada hadhowtu mantana calacalka soo doona shalay dhaantay kii hore ku hore dhaamay marka waxaanu ka doonaynaa duruustani inay arrintaa inoo daweyso waxaan uga mahadnaqayaa wasaaradda dastuurka iyo xidhiirka golayaasha hawshaa weynay qabatay iyo aqoon-yahankii ku beeriyey iyo aqoon-yahanka maanta kasoo arrintan kasoo qayb galay wasaaradaha iyo jaamicadaha lagu wareejinayana fari maayo waxaa qabta laakiin waxaan ka codsanaynaa inay aada loogu dadaalaan inay dadka waxbarayaan iyo mujtamac nagala hawlgalaan in la dhacsiiyo waaro waxaynu ku soconay iyo waxaynu doonaynaa waa kala jaade aynu waxa barano inaanay ka gaarin odayaal daalay wakti badan joogay laakiin maanta intan waajibkii basa nala hejiya
aad iyo aad baan isku maqlayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu